isu sheegtiyo isqoraansi baa yimi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هبين وناكسن دادك ندقيسان يو كسو دوادا برامجك حكمال وهبين ثلاثة أربعة سوق لسوق تلسك تاريخ ده شن يطبنك بيشة سبتمبر سنة لبضة كوني اللباتنك قضبضة عاوة برامجكات كل جيسان دون تانو حاكم النقنية ابنك ترسان مضاش حزبية ده قران او مدحوين فرماجو كو ايديي كاليجي تلسنمو يصيدو كالين او بالمري شروع ده دلك او يالا حكومة دمشق كساري dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa ogaadaan caawa la joogay dawladnimada waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaligiis waa maxay sababta barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa waxa sidoo kale caawa barnaamijka ku jira idina aad dhageysan doontaan Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka haatan ah musharax madaxweyne iyo Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari guddoomiyihii hore ee golaha shacabka oo ku kulmay Muqdisho haddaba maxay uga hadleen kulankooda maxaase ka soo baxay barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan qayb waxa ka qodobada kale caawa barnaamijka ku jira majmaca culimada Soomaaliyeed oo bayaan ka soo saaray sharcigii shalay la hor keenay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuna aadanaa arrimaha jinsiga sheekh nuur baaruud gurxan oo ka tirsan hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in sharcigan ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin u shaqeynaya beesha caalamka barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa kulan Muqdisho ka dhacay ayay arrimahan uga xog warameen waxaad sidoo kale dhageystayaal barnaamijka ku dhageysan doontaan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay kadib qarax nuuca minada dhulka lagu aaso oo ka dhacay saacadihii la soo dhaafay waqooyiga degmada Xudur ee gobolka Bakool haddaba muxuu ka yiri taliyaha degmada Xudur ee maamulka gobolka Bakool waxaa ku geeriyooday meeshaas 6 qof waxaana dhaawac noqday ilaa waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya ayaanu barnaamijka idinku soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa sheegay in aqalka sare uu ku dadaalay inta uu jiray isaga oo aan awood dhaqaale iyo mid guriba aanu haysan uu ku dadaalay sidii raad wanaagsan uu ugu reebi lahaa xubnaha kale ee imaan doona xilliga doorashada barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa waxa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhageysan doontaan waa afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed gaashaale Sadiiq Doodisho ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay in ka badan 10 eedeysane oo loo soo xirxiray kiiskii Allah u naxariistay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax barnaamijka ayaanu idinku soo baahin doonaa waxa sidoo kale caawa barnaamijka ku jira idina aad dhageysan doontaan haddii Rabbi raali ka noqdo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug waxa uu sheegay in tallaabo wanaagsan ay tahay in gobolka Banaadir uu matalaad rasmi ah ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya hadalkan ayuu ka jeediyay kulankii aqalka sare maanta ka dhacay qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad caawa barnaamijka ku dhageysan doontaan dhageystayaal Cabduqaadir Qoslaaye oo soo saaray ayaa tabinaya barnaamijka Maxamed Abuukar Cabdi Xasan waa farsamada barnaamijka gabagabadana waxaad ku dhageysan doontaan
hagaag dhegaystayaal heestaas gabagabada barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. waa mar kale iyo barnaamijka xogmaal. waa tahay dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan, isu soo noqod wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay. goordhow ayaad maqli doontaan faahfaahinta qodobadii hordhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen. hase yeeshee markaan kusoo dhowaada dhegaysiga wararka ugu waaweyn gudaha dalka iyo dibadda. waxaa soo ururiyay halkan kasoo jeedinaya waryaheena maxamed abuukar cabdi xasan oo dhanka farsamada ka qaabeynaya barnaamijka. maxamed, aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir quslaaye. ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa mar kale war ka soo saaray dhacdadii argagax laheyd ee 11kii bishan ka dhacday degmada waaberi ee gobolka banaadir. afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed sadiiq aadan cali ayaa sheegay in ciidamada booliisku ay wadaan baaritaano ku aadan falkaasi. waxa uu sidoo kale taliyaha shaaca ka dhigay in ay shalay ay gacanta ku dhigeen 11 eedeysane oo falkan lagu soo eedeeyey, islamarkaana hadda baaris ay ku socoto, isagoona sidoo kale shacabka soomaaliyeed ugu laab qaboojiyey in ay ku raajoogaan shakhsiyaad kale oo falkan ku lug leh. faahfaahinoo dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan gaari ay lahaayeen ciidamada dowladda soomaaliya oo saacadihii la soo dhaafay magaalada muqdisho ku jiray carruur wax ka baranaysay mid ka mid ah dugsiyada qur-aanka ee ku yaala magaalada muqdisho. shilkan ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow degmada shangaani ee magaalada muqdisho, gaar ahaan waddada gasha xarunta maamulka gobolka banaadir, kadib markii gaari noociisu ahaa kuwa cabdibilaha ay soomaalida u taqaano oo xabaaro sare ku socday uu jiray carruur waddada socotay. mid ka mid ah carruurtaasi ayaa la sheegay in uu ku dhintay shilkaasi, halka mid kale oo gabar ahayd ee uu dhaawac uu ka soo gaaray, waxaana loola cararay goobaha caafimaad. ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya ayaa tagay goobtii uu gaariga cabdibilaha uu ku jiray carruurta, islamarkaana xiray goobtii uu falkaasi ka dhacay, ayagoona gaadiidka u diidayay in ay maraan goobtaasi waxyeellada uu ka dhacay. barasaabka ismaamulka gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya cali bunow qorane iyo 4 sarkaal oo ka tirsanaa xafiiskiisa oo saakay la soo taagay maxkamad ku taala magaalada nairobi ayaa lagu soo oogay eedeemo la xiriira musuq maasuq. saraakiishan la xiray qorane ayaa kala ah ibraahim nuur maalow oo ah madaxa maaraynta dhaqaalaha ismaamulkaasi, maxamed axmed cabdulaahi oo ah madaxa canshuuraha, cabdi shaale oo ka tirsan waaxda fulinta ee dowladda hoose, iyo axmed cabdulaahi aadan oo ah madaxa xisaabaadka dowladda hoose, ayagoona dhammaantooda iska fogeeyey eedeemahaasi musuq maasuqa ah. inkastoo kiiskan uu sii socon doono, haddana barasaabka gaarisa ayaa saacadii la soo dhaafay waxaa lagu sii daayey lacag damaanad ah oo gaaraysa 32,000 oo dollar, waxaana laga joojiyey shaqadii xafiiska ee ismaamulka gaarisa. xariggan mas-uuliyiinta ayaa waxaa amray dacwad oogaha guud ee dalka kenya nuurudiin xaaji dabayaaqadii toddobaadkii la soo dhaafay, kadib markii uu sheegay inuu ku tuhmayo in ay si qaldan u isticmaaleen lacago loogu talagalay mashaariic horumarineed in loogu fuliyo dalkaasi kenya. madaxweynihii hore ee muddada dheer dalka maali xukumayay muuse tarawar ayaa dhintay isaga oo jira 83 sano, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee IFB. tarawar waxa uu xukumayay waddankan ku yaala galbeedka afrika muddo 22 sano ah. waxa uu xukunka la wareegay 1968 kadib markii uu hogaaminayay militariga dalkaasi. sidoo kale waxa uu xilka sii hayay ilaa iyo bishii maarso 1991 markii xukunka looga tuuray kacdoon dadweyne. geerida tarawal ayaa imaanaysa bil un kadib dembigii kale ee ka dhacay dalka maali ee lala beegsaday madaxweynihii hore ee waddankaasi ibraahim kayt ayaa militariga ka xayoobiyaan xafiiska 18kii bishii agoost kadib markii toddobaadyo mudaharaadyo looga soo horjeeda xukunkiisa uu ka socday dalkaasi maali.
ugu dambeyntii dab xoog leh ayaa mar kale baabi'iyey inta badan dhismooyinka ganacsi ee ku yaala caasimada dalka Lubnaan ee Beirut. dabkan ayaa markiisii horeba ka bilowday dhismo ay deganaayeen shirkad laga leeyahay dalka Ciraaq, isagoona sidoo kale ku fiday dabkaasi suuqyada ay dadka inta badan wax ka iibsadaan. kooxaha gurmadka degdega ah ayaa goobta ka sheegay in ay ku guuleysteen in ay damiyaan dabkaasi holcay. dhismooyinka gubtay ayaa aad ugu dhowaa dekedda magaalada Beirut oo bil ka hor ku burburtay qaraxyo waaweyn oo ka dhacay, kuwaas oo sababay dhimasho 100,000 oo ruux iyo dhaawacyo oo kumanaan kale ah. waana inta dhageystayaal dhacdooyinka caalamka aan dib idinku celiyo quslaayo iyo qeybaha ka haray barnaamijka xukmaal. aad buu u mahadsan yahay maxamed abuukar cabdi xasan ayuu kaasi ahaa oo soo koobayey wararka u waaweyn gudaha dalka iyo dibadda saacadihii aynu ka soo tallaabnay. aan halka uga imaanno markaan aan gudagalno faahfaahinta qodobadii hordhaca barnaamijka aad ku dhagaysateen. haddii aan ku bilowno, khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay kadib qarax nuuca miinada dhulka lagu aaso oo ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay waqooyiga degmada Xudur ee gobolka Bakool, meel u jirta 28 kilomitir. waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo inta badan soo gaaray dad shacab ah. taliyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool oo la hadlay idaacadda Star FM una waramay wariyaha idaacadda Star FM Maxamed Faransa ayaa waxa uu sheegay in khasaaraha uu jiro isla markaana waxyeeladu inta badan ay ka soo gaartay dad shacab ah. waxa uu hoosta ka xariiqay in miinadan ay dhulka ku aaseen ururka Al-Shabaab isla markaana ay ugu talagaleen buu yiri in ay ku waxyeelayaan dadka shacabka ah. gaashaanle Xuseen Maxamed Axmed, taliyaha degmada Xudur ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuna sugan gobolka kana tirsan gobolka Bakool, ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka ay la shaqeeyaan ciidamada si looga hortago buu yiri waxyaabaha keeni kara ammaan darida sida tan xalay dhacda oo kale sidoo hadalka u dhigay. waa kan gaashaanle Xuseen Maxamed Axmed oo u waramay wariyaheena Maxamed Faransa oo ku sugan magaalada Baydhabo. marka xalay goor ahayd halka habeenimo ayaa waxaa ka dhacday meel Xudur awgeey kaga aadan dhinaca waqooyi oo jidkaan qurac joomashooda dhexdiis oo 30 kilomitir ilaa intaas meel 28 kilomitir meel ay loo jirto ayaa mooto 3 lugaadle oo dad shicba saaran yahay ayaa meel jidka ayuu geliyay ayaa kula kacday. aad iyo aad waxaa ku geeriyooday meeshaas 6 qof, waxaana dhaawac noqday ilaa 3. waa laba waa midka saddex waa runay baa leeyahay, laakiin laba dhaawac isbitaalka ayaa la keenay. waayahay taliya waa mahadsan tahay. wararkaas la sheegayay in qaraxa goobtaasi ka dhacay dadkaas tirada gaarayana ay ku geeriyoodeen, maamulka koonfur galbeed ma ku hadlay warkaas? kaamooyi kulli way ka hadleen gudoomiyaha degmada arrintaas inuu ka hadlay waan falayaa waa sababadiisu weeyaan anigu kulli intaan daan hubuantaas. bal qarax markuu dhacay goobta ciidamada ammaanka ma gaareen dhaqdhaqaaqyo ma la sameeyay? waa sidee xaaladda amni guud ee hadda deegaanka? ciidamadu howlgalo may wadaan? dadkii qaraxa ka dambeeyay iyo wararkaas ma la socda? howlgallada markaas horeyaaba u socdeen, waayo jidka meelada horey kuma jirin, laakiin shalay ilaa halay ayay geliyeen. sababtay u geliyeen waa ciidanka hogga dalka oo jidkaas amnigiisi sugayay oo kolonyo baabuur oo dhankan beligeena ka soo socoto soo gudbinayay ayaa meeladaas loo dhigay sidaan falayo. laakiin ayagu waa waxba ma degmada Xudur bay ku soo waajahnay? ayagu waxba uma aabiyeelaan marka meeladaas oo dadka muslimka oo masaakiinta ay ku baabaceen talagalkoodii kallay saasa ku qiyaaseen, laakiin ayagu waxba ma kala reebaan. marka horeba arday dameerka iyo gaari dameerka ama dameerka lugtiisa soo oo shuglaha gaari dameerka mooto bajaajka mooto saddex oo shicibku weeyay dhammaantoodii horey ayaan ugeeyay way gubi jireen magaalada soo socdo meelana way u dhigayaan
haddii oo gacantooda galan argay dabbay ku gudeen way gaarsiinayeen marka kolley sidaan ku ogaa naxariislaawayaal weeyaan bal dadkan haddii diiradda la saari lahaa oo markaasi howlgallada lasii xoojin lahaa degmooyinka iyo gobollada isku xirmi lahaayeen soo isma odhan lahayn in dadkan amnigooda laga guulaysto oo sidaa daraaddeedna gebigoodaba lasoo afjaro hataa ilaahayna waa sakaraya waana lagu socdaa waayo ayagu waa cadowna haddii ilaahay aqoon inaan iska reebsideeyaan kolley waa laiska reebayaa horeyna waa laiskaga reebay haddana waa insha allah ciidanka hadda aan sheegayo waa ciidanka hooga dalka soomaaliyeed oo ilaa 120 kilomitr oo howlgal ugu jiro ilaa dirac joome ilaa eelbirde jidadka oo dhan ciidanka hooga dalka ayaa ku faafsan marka wax dhuumaale oo argay tuuge oo de qofiyo laba oo miilahan dabarka ku soo qaatay oo dhuumanay aad isku dhawaa geeljiri iyo waxaan la garanaynin de waa kaa hoos beli karaan wax sidaasee mooyin hataa baabuur ma keensan karaan jidka soonihiisii marka cadow sidaas oo dhuumaaleysta oo xun weeyaan marka haddii ilaa yidhaahdo kolley waana lagu tali jaraa in la baabiyo haddana waa lagu maqan yahay howlgaalka sidiisa u socda waayahay taliya ugu dambeyntii dadkii waxyeeladu soo gaadhay halkee baa la geeyey cusbitaalada may taalaan mas-uuliyiinta maxaa ugu gudboon dadkaas ma booqdeen waana sidee xaaladda guud amni ee deegaanka hadda dadkii geeriyooday saaka waa loo gurmiday waxaa lagu aasay meel adigu bandinay layidhaahdo oo deegaanka dadkaas geeriyooday ay u badnaayeen oo deegaankooda ahaa ayaa saaka lagu aasay magaalada dadkii joogay maamul gobol iyo degmo dharkaasaa la wada aaday dadkii waa lasoo aasay dadka dhaawacdeen ilaahay dhaawacooda ha bogsiyo kolley intii tabare waa lala tacaalayaa isbitaalka gobolka ayaa xalay fiidnimobiyaa la keenay isbitaalkana dhakhaatiir takhasus kule aad u fiican ayaa jeegta marka adigu kolley daawaxii astankeen war kama sheegi karo laakiin maamulka halay muuse seexin wax baa magaalada ka seexday malaha howlgalkaasi waa loo wada gurmiyey waa loo wada dhanaa gaashaanle xuseen maxamed axmed taliyaha ciidamada ku sugan degmada xudur ee gobolka bokool ayuu kaasi ahaa oo u waramayay waryaheena maxamed faransa oo ku sugan magaalada baydhabo una faahfaahinaya khasaaraha ka dhashay qarax saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay meel degmada xudur u jirta qiyaastii 28 kilomitir islamarkaana kaga beegan dhanka waqooyiga halkaas oo uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhiig walaalkii kii quba qooma mow dambayse dhiig walaalkii kii quba qooma mow dambayse midnimada quweeyo xornimada qadariyo isqoonsiga dhexdeena iska dhaafa khaladko isqoonsiga dhexdeena iska dhaafa khaladko markan madasha xisbiyada qaran kulan ay maanta muqdisho ku qabteen ayay eedeyn kulul ugu jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kuna eedeeyeen in uu yahay keligii talis islamarkaana ku xadgudbay shuruucda dalka u yaala madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shirkaasi jaraa-id ka hadlay ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxtooyada soomaaliya waxaana uu sheegay in howlihii dalka oo dhan ay ku soo aruurtay gacanta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu tilmaamay in madaxweyne farmaajo uu si cad u baalmaray dastuurka marka laga eego tillaabooyinka uu qaaday tan iyo maalintii la doortay siduu hadalka u dhigay xildhibaan xasan sheekh maxamuud ayaa hoosta ka xariiqay in aan la aqbali karin in 53 maalmood uu dalku ahaado ra-iisul wasaare la-aan islamarkaana shaqada haatan socoto ay u muuqato mid liidata waxa uu baaq u diray bulshada soomaaliyeed in laga shaqeeyo sidii loo badbaadin lahaa dalka oo ay sheegeen in hadda uu ku sugan yahay xaalad halis ah loogana baahan yahay in meel ay uga soo wadeejeystaan sida uu sheegay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaro madaxweyne 30 maalmood ka badan haystay ra-iisul wasaare sooma marin ra-iisul wasaare inta la magacaabo isaguna 30 maalmood ka badan xukuumad inuu ku soo dhiso soo marin ma jirin
waxaasi ilaalmay mudan yihiin 60 sana la soo ilaalinaya maanta haddii lagu gudbay wax badan kama duwan iyadoo dastuurka lagu gudbay oo kale waxaa Soomaaliyada maantana waxaas la isla fahmay oo war wixii cusub oo mushkilaadka hadda taagan in laga heshiiyo oo heshiis looga gudbay ahayde kuwii hore heshiiska loogu ahaa in laga tirso 4.5 waa aragnay dastuurka kuma qorna laakiin haddana heshiis dad lagama gudbo hayo ra'iisul wasaaraha magacaabistiisa 30 maalmood ixtiraamkeedana waa sidaas oo kale meel looga gudbi kara ma laha madaxweynuhu wuxuu sameeynayo dastuurka sax kuma ah dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan rabaa بكل الاحترام أنا مدحونا احترام وهايون أفلقادين أفلقادنا أنا إجاهين إجانا الصوروبن وحبك كم الدوانا مدحونا وصمينا نين جبر أي كلا تجان ولي المقدار يسوي حبك كم الدوانا حاسكي أي كلا تجان أو فري أسوي ولي حاس أطايو كلاواي حكومة دمان تجرتها واساس شرع معها وشرع الدر دستورك وحاكو عط رئيس الوزراء كحجين كيسة أما كحجين نديسة حتى هذا الكحجينات بجربه معقول معها دستور كمال وكتل ما يمله حكومة دي دعضي أيان قار أنت سوء عليان وكمل جار أن له مركزا هدنا لبا بلوت أنا اسكسي دينية مركزا هدنا حكومة صدق كمال الموت ومدعونا لسي حكومة وحلو تل روتين أدمنستريشن كي الدولة لماذا السعودية إنه نكل الجوين أو سي صعده الله قلت تلقى إنه ماشي سي جوكتو لكن لو قمت تلقى قوانين عصب إنه يدجسوا قدية دستوري أو عصب إنه مقعود inay meel walba ka baxdo gudiyadaasoo dastuuri waay gudiga adeega garsoorka iyo gudiga waxaasoo dhan sida ay ku imaanayaan iyo sida loo dhisaayo gudiyada xataa sida ay ku imaanayaan dastuurka ku caday xeer kale xataa ma dastuurka tilmaamayo gudiga adeega garsoorka 1 2 3 saan ku imaana qof xaqay ka imaanay laba xaqay ka imaanay saddex qofood xaqay ka imaanay waa tilmaamantahay hal qof oo meeshu ka imaanahay laga imaadsiyo ma jiro laga keenay ma jirto 5 qofood waay dadka la keeni lahay 4 qofoodna waa joog 4 qofood mi saddex joogta hala ayada xataa ka maqan waay hadda gudiyo kala baarlamaan waa waxa naloo sheegay waliba waxaan anaga haynaa xog dhahayso shuruuc badan iyo gudiyo badan golaha wasiirada hadda mugay dhaceen ka bacdi ansixiyeen la leeyahay war meesha falaad waay dawladnimo kama socoto dawladnimo waa qaanuun waa dastuur waa curfi la ilaaliyo oo maxaan ku raada dhaqan oo la dhowro waay dawladnimadu ma aha cawad intaan seexdaa waxaan rabaa iska sameeyna madaxweynuhu meeshaas ka yimaado dalkana yaanu dhaqan cusub oo jireynin horan u soo jirin yaanu waa odagii maanta waxay taagan tahay madaxweynaha baarlamaankii asiga rafaadka dhaxyaal dhigay labada aqal inaanay isku imaanayn shaqaday wada lahayn aanay wada qabanayn wixii ka dhaxay aanay ka dhaxaynin xeer dalkaanu ka dhaqan galaa la leeyahay oo sidoo ku soo marin aan soo maraynin madaxweynaha asaa raalli ka ah agtiisa yaalaan xeerkii labada aqal golaha mid kamid uu soo gudbiya agtiisa dhooban oon kii kale loo geynin marka madaxweynaha baarlamaanka asaa kala haayo xukuumaddii meeshuu ka saaray dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa ha ogaadaana caawa la joogaay dawladnimada waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo keligiis xukuumadii ma jirto baarlamaankiina waa disable waa kala jiraa macnaha baarlamaanka inuu jirin ma labadii aqal waa jiraan laakiin sharciyan wixii inay qabtaan iyo sida inuu u shaqeeyaan ay ahayd uma shaqeeyaan umana qabtaan waana cilad uu madaxweynaha muxuu ahay oo ka mas'uul yahay asaga la rabay inuu isku soo qalqaaliyo isu keeno celiyo kii xoogaa xadgudub yiraahdo kan kala odagii inuu meesha ka odayo madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka afka qalad waxa custodian waa qaadimka dastuurka waay siyaasadu qarsooniyo qasulan qalbiga jirin been baa lagu khaldaa si loo qaybiyo Soomaaliyeed mid qura noqo weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka xogmaal oo idinkaga imaanaya idaacadda Star FM stuudiyaha magaalada Muqdisho qodobo dhowr ah ayaa inoo soo socda oo uu ku jiro xasan cali kheyre kulankii ay wada qaateen gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxyaabihii ay uga wada hadleen iyo sidoo kale waxa ka soo baxay iyo sidoo kale waxa inoo soo socda afayeenka ciidamada booliskana waxa uu sheegay in rag hor leh loo soo qabtay kiiska Allah u raxmaday marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar la isugu daray kufsi iyo dil lagana soo tuuray dabaq hase yeeshee markaan
hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa bayaan ka soo saartay sharcigii shalay la horgeeyey xildhibaanada golaha shacabka hase yeeshee ay ka dhigdhigeen qaar ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka oo uu ugu horeeyo guddoonka golaha shacabka. sheekh nuur baaruud gurxan oo ka tirsan hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa sheegay in sharcigan ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin u shaqeynaya beesha caalamka. dhinaca kale culimmada ku jirta majmac culimmada soomaaliyeed oo iyana madasha ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh cali wajiis iyo sidoo kale sheekh bashiir axmed salaad, islamarkaana ay tilmaameen in loo baahan yahay in aan lagu xadgudbin diinta islaamka, islamarkaana shacabka soomaaliyeed aan lagu marin habaabinin waxyaabo wax u dhimi kara diintooda islaamka, loogana baahan yahay xildhibaanada golaha shacabka maadaama matalaada shacabka ay halkaa ku fadhiyaan ay ka dhiidhiyaan waxyaabaha wax u dhimi kara diinta islaamka. waxaan cidda dabada ka wada iyo meeshuu ka socda waan naqaanaa. guud ahaan dadkan beesha caalamka lagu sheego ama gaalada ah ayaa dabada ka wada oo soomaali waxaa dhibaya in la yidhaahdo soomaali 100% waa muslin. waxay rabaan annagoo taagtaagan inay dhaqankanagii iyo diintanadii ay bedelaan. wax badan oo hadda ay iska dhigdhigayaan insaaniye iyo xuquuqul insaan iyo intay ka dhacday iyo dumarka koonto ha loo sameeyey iyo gebgebtaasoo dhan maalinba waxbay samayn doonaan. waxaan leenahay niman yahow isku diin ma nihin, isku caqiida ma nihin, isku dhaqan ma nihin. wadamadiina ceebta ka jirta waad ogtihiin. nadaaya annagu dad muslinaa nahay, caqiidadanada annaga u madax bannaan. baarlamaankana waxaan u sheegaynaa inta khaldan ummaddaa soomaali caqiidadeedu waa lama taabtaan, iska ilaaliya. gabadha tidhi muslin yaan la shardinin, waxaan leenahay walaala ilaahay u toobadkeen, waa gef bay ku tahay ummadda soomaaliyeed. waxaa kaloo u baahan iyadana in la taabto wasaaraddan dumarka iyo xuquuqul insaanka oo qaanuunkan jandarka ah oo xalay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku markay shalay akhrinayeen yaqyaqsiga ahaa ee xataa in la akhriya wax laga xishooda ay ahayd. wasaaradda dabada ka wada muddo ana waday oon ogahay si shakhsi aan u ogahay. waxaan leeyahay walaalay joogso, waddankani waddankaad mooday ma aha. hadday jiraan kuwa ku soo diray waa la iga diiday dhe mushkilo ma laha, ma soconaysa taas. marka baarlamaanka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo. guud ahaan madaxda soomaaliyeedna waxaan leeyahay war dadkan ummaddan xilka aad u dhiibaysaan intaydaan u dhiibin ka fiirsada oo qof garasho leh oo aqoon diimeed leh oo garanaya waxa ummaddan waxa socon kara iyo waxaan socon karin madaxnimada noogu dhiiba ee waxaan uuna isaga dhiibaysaan naga daaya. dadkan aan la garanayn naga daaya. waad mahadsan. soomaaliya burburka waxaa u sababa meeshay maanta taallo inay taallo waa diinta oon ka leexan annagu. diinta waxaan uga leexanay 60 laga soo bilaabo ilaa maanta. waxaan ka tagnay inaan shareecadeenna ku dhaqanno. waxaan ka tagnay akhlaaqdeenna wanaagsan ee suubanee soomaalida lagu yaqaano islaamka oo la yimid inaan ilaalino. waxaan ka tagnay xataa inaan annagu iswalaalaysano, isjeclaanno, qaraabogoysa noqono. dagaalada iyo colaadaha waxaa noogu sababa sida ilahay qur-aanka noogu sheegay fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wataqadicuu arxaamakum. waxaa weeye marka dhulka waxaan ku fasaadinay oon dhiigga isaga daadinay oon u burburnay waxaa weeyaan inaan ilaahay ka jeesannay. marka sida guddoonka uu soo jeediyey oo ay ku celceliyeen qaanuunkan magac xun leh oo sida culimmadu ay sheegtay qaanuunka jinsiga ay ku magacaabayaan erey bixintiisa af soomaaligana xataa afka laga dhowranayo aan laga sheegi karinba foolxumadiisa oo dabada 3 sano lagu hayo. aniga qofkii ugu horreeyey oo ka soo dhaca ayaan ahay. xukuumadda ra-iisul wasaarihii hore ayaa 2018 bilowgeeda ayaa intii loo soo gudbiyo gabadha wasiiradda soo gudbisay baa aniga laga keenay sheekh bashiir iyo sheekh nuur iyo culimadan u gudbiyey. 7 jeer san ka yeelanay. waxaan ka qornay fasaadka ka buuxa ayaan soo gudbinay. markaasuu golihii wasiirada maray iyadoo maaragtay sidiisii ku soo maray. haddana markii dib haddana loo saxay ayay haddana qoladii weli daba socdaan inay isagoo fasaadkiisii wato oo sidiisii hore ah oo wasiiradda ay ku soo gudbisay in golaha la marsiiyey ay u dagaalamayaan. marka wax shaqaynaya ma ah. guddoonkuna mowqif sax uu ka qaatay. culummada iyo ummadda soomaaliyeedna 100% ay ku raacsan yihiin. waxa weeye marka walaalayaal yaan wax laga raadinin in wax ilaahay ka caroonayo oo gabdhaheenna iyo wiilasheenna akhlaaq xumo u keenaayo oo dalku ku burburaayo in dalkan qaanuun looga dhigo. dhaartiinana ha burino. xildhibaanada waxaas daba socdana ilaahay ka baqaano. midda labaad gabadhaas iyaduna tiri shardi ma aha in qofka xilka loo dhiibaayo
muslim uu yahay ka dooday si uu yani maarata waqaaxale weliba xishood darro ah baarlamaanka hortiisa uga hadashayna ilaahay ka baqdana tooba keento waa kitaabkay ku dhaartay bay burinaysaa iyada lafteedu qofka muslimka in lagu geesinimo geliyo diintiisa inuu ka baxa ma aha waxay ka bixin diinta inay dadku ka baxaan oo xuquuqdooda wadaniga ay helayaan iyagoo murtadiinoo diin la'aana oo islaamka caaya islaam ka baxay ayay dadka ugu yeeraysaa waxaasna wax shaqaynaya ma aha marka waxaa waaye shuruudda dastuurkay ku qoran tahay wax kasta oo diinta islaamka hormaan inay burayaan qof kasta oo Soomaaliya xil inuu ka qabto raba madaxweyne ilaa kan ugu hooseena waa inuu ahaado qof dhaqanka iyo diinta ummadan haysto muslim ah hadduu yahay qof diin kale tafaafinayo dalka inuu dadka diinta ka fasaadiyo raba oo soo gaaloobo diintiisa ka ridoobana meesha uu ku ridoobo ku gaaloobo iska aado laakiin dalkan diintiisa in la fasaadiyo marna ma la aqbali doono insha Allah waxay ahaayeen xubnaha ugu sareeya hay'adda culimada Soomaaliyeed sheekh Basiir Axmed Salaad sheekh Nuur Baruud Gurxan iyo sidoo kale sheekh Cali Wajiis oo ka dhiidhinayay kana soo saaray bayaan sharcigii jinsiga ee shalay la horgeeyay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inkastoo ay ka dhiidhiyeen guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya siyaasadu qarsooniyo qasulaan qalbiga jirin been baa lagu khaldaa si loo qaybiyin Soomaaliyeed mid qura noqo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa waxa uu sheegay in aqalka sare uu ku dadaalay inta uu jiray isagoo aan awood dhaqaale iyo mid dhismaba aanu haysan oo ay iyagu u gaar ah ay ku dadaaleen sidii meel wanaagsan iyo madal fiican ay ugu kulmi lahaayeen sanatarada xiga ee ku imaan doona xilli doorashada waxaana uu sheegay in xildhibaanada aqalka sare ay guud ahaanba iyo guddoonkoodaba ay dadaal ku bixiyeen sidii ay u abuuri lahaayeen dhabo wanaagsan oo ay ku shaqeeyaan xildhibaanada xiga ee imaan doona aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waa kan hadaladii uu ka jeediyay isla markaana dardaaran u jeediyay madaxweynaha maamulka Galmudug oo kulankaasi qayb ka ahaa isla markaana su'aalo ay weydiinayeen xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya aan marka hore idin hormarsiyo Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo hadaladii uu halka ka jeediyay mudane madaxweyne aqalkii dadka waaweyn odayaasha iyo dhinaca kale kolkaad fiiriso dumarka waaweyn waxa weeye waa aqal inagu cusub oo dalkeenna ku cusub laakiin muddadii uu jiray oo ah hadda 4 sano oo dhadhow aad buu u dadaalay wax badan buu qabtay oo ah inuu itijaah sameeyo oo uu ka tago waqtigoodii waa gabagabo laakiin raad inuu aqalkani ka tago berri dadka matali doonaa ee magaca aqalkan ku shaqayn doonaa ay raacaan aqalku wuxuu ku dadaalay inuu shuruucda dalka oo aynu ognahay in weli wax badani ay dhiman yihiin sidii loo hirgelin lahaa aqalkani isagoon awoodba lahayn dhaqaale iyo baaxad guritoona uu ku dadaalay labada guddi ee inoo qaabilsan samaynta dastuurka oo ah guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga dastuurka ee baarlamaanka inuu siiyo wixii fursada uu heli karay oo ah inuu xafiisya siiyo ay ku shaqeeyaan waxa weeye taana ujeeddadan ka lahayn waxa dastuurkani inuu noqdo dastuur la dhammaystiro inkasta oo uu noqonayo dastuurku meel gaara haddana waxa weeye inuu noqdo ayaan u baahnayn dastuur yacni dalkan lagaga shaqayn karo mudane madaxweyne aqalkani wuxuu u taagan yahay nabadda iyo midnimada Soomaaliyeed
markaas waxba anugu ku dheeraan maayo maanta adiga warbixin kaa sugaynaa. gudoomiye cabdi xaanshe cabdilaahi ayuu kaasi ahaa. markaan aan eego axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug ayaa isna qayb ka ahaa fadhigii golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaana lagu weydiinayay su-aalo la xiriira howlihii uu ka qabtay deegaanada galmudug iyo tan guud ahaan siyaasadda dalka. waxa uu sheegay axmed cabdi kaariye qoorqoor in tallaabo wanaagsan ay qaadeen golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya taas oo ku suntan matalaada uu helay gobolka banaadir kana helay aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaana uu ka falceliyey dhowr su-aalood oo ay weydiiyeen xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya. waa jirtay ama way dhacday in fadhigii saddexaad ka soo baxeen ama kala maqnaansho ama kala duwanaansho. runtii dadaal baa galay, dadaal badan baan lagu baxshay. galmudug xil gaara is saartay, guud ahaanna soomaali waa ka wada qayb qaadatay dadaalka. nin joogay ama cid joogtay ama madax joogtay iyo madax maqneedba waxaan aaminsannahay in la wada dadaalayay. dadaalku mararka qaar laftiisa wuxuu keenaa in ra'yiga lagu kala duwanaa karo. ma ahan uma fasirayno ama maba noqon ama maba ahan in ay wax kale meesha ku jireen. keliya un dadaalada ayaa sidaa u kala socday. galmudug dowladeeda iyo shacabkeeduba waxay isi saareen mas-uuliyadda aad ogtihiin oo fadhiyadaas waaweyn oo aadka u ballaaraa oo aan hubno inaad golaha sharafta leh ka qayb galeen, qayb ka ahaayeen, dadaalkiina ku biiriseen ayaa runtii laga geystay. ilaahay fadligiis waa lagu guulaystay. wax kastoo howlahoon ka marnay maantay waxay noqotay galmudug goobtii ama gogoshii ay ka soo baxday in qaab doorasho iyo hanaan doorasho loo gabangabadiisii ama turxaan bixintiisii ama isla qaadashadiisii loo fadhiyo heshiiskii ka soo baxay dhulsaramatri oo hadda maalmihii lasoo dhaafay aan u joognay, halka u joognay, haddana loo fadhiyo. kuna kalsoonnahay inuu guul iyo waktiga la joogo doorashada hanaan lagu galo laysla ogol yahay uu ka soo baxo. waa waajib ay lahayd ama saarnaa galmudug oo ay ka soo baxday inay soomaali gogol wakti ku habboon u dhigto si xasilooni iyo heshiis loogu gudbo waktiga doorashada. aad iyo aad bay runtii waxay u ahayd kaalintoodii meel ay joogaanba shacabka reer galmudug kaalintii ay ka qaateen iyo dadaalkii ay bixiyeen waa ugu mahad celinaynaa. aad baan runtii u leenahay. sidoo kale madaxda sharafta leh, mas-uuliyiinta soomaaliyeed, shacabweynaha soomaaliyeed kaalintii ay ka geysteen iyo taladii ay ku dareeyeen iyo siday noo garab taagnaayeen waa u mahad celinaynaa. ayadana kaalinta aqalka sare runtii waa aqal muhiim u ah, howl badanna soo qabtay, unaga mahad celinayno. gaar ahaana dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah u ah si gaar ah matalaad iyo xil gaarina uu ka saaran yahay. anaan aaminsannahay inay runtii qaateen kaalintoodii, dadaalkoodii iyo hawshii ku aadaneed. waxaan isleenahay maanta waxaan u baahannahay inaan si wada jir ah u galno waktiga. waxaa la yidhahdaa baryahan aqalka sare iyo golaha shacabka maaragtay annagan taas waxaan isleenahay runtii waa waktigii ugu habboonaa iyadoo mar walba sax ah ay tahay inay aqaladu wada shaqeeyaan, doorashadana ay ka wada yeeshaan ama dalka ka wada yeeshaan aragti mid ah.
waa huba inay ka leeyihiin suna waxna weyna isa jirin wixii yar oo mararka qaar jirana waxaan rabnaa inay ku dhammaadaan sida baahida loo qabo maantay Soomaaliya hore loogu baahnaa haddana baahi gaar loo sii qabo iyo waqtiga la joogo in aad iyo aad ay ugu habboon tahay doorashaduna ay noogu dhacdo si aan haba yaraatee dhinacna waxba ka jirin jiilaa yiraahdo taan kalsoonahay taas waa diga dardaaran aan hubo inaad u taagan tihiin aan hubo inaad waana shaqadii dastuuri oo waana shaqadii aqalada oo sharci ah ayna ku jirto waqti u turud iyo u tartiibin mudan ma ay ku jirto diyan wax yar bidaal ugu noqdo guud ahaan waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad isdul taago kala duwanaanshihii iyo doodihii ama aragtidii ku saabsaneed doorashada inay meel fiican joogto meel fiican soo gaartay runtii ay tahay aan ka filayno inay wax walba ku dhammaadaan si aan ku jirin